diyaar ma u tahay inaad hormariso naftaada iyo noloshaada. dabcan qof kasta oo nool waxa uu doonayaa isbeddel in uu sameeyo. in badan uma suurto gasho si kasta oo ay isugu dayaan, sababtoo ah ma raacin waddadii saxda ahayd ama ma doonayaan in ay wixii ay ku jireen ka baxaan si ay u helaan natiijo kale. dad badan waxa ay naftooda u akhriyaan liis dheer oo ah waxyaabo ay rabaan inay sameeyaan, noqdaan ama ay helaan. haddana waxa ay ku dambeeyaan jahwareer, sababtoo ah waxa ay rabaan in hal mar si dhaqsi ah ay guul weyn u gaaraan. caado ama dhaqan yar oo qofku uu si joogto ah u sameeyo maalin kasta ayaa waxa ay ku hogaaminaysaa guul. qaar ka mid a qodobo aad naftaada ku horumarin karto ayaan halkan kugula wadaagayaa. ku tuko salaada subax waqtigeeda, sidoo kalena marka ugu horeysa oo aad hurdada ka toosto u mahadceli Allah subxaanahu wa ta'aala oo ku siiyo fursad kale oo nolosha ah. 2 qor wixii hawl ah oo aad rabto inaad maalintaasi qabato, u kala hormari sida ay u kala horeeyaan ama ay mudnaanta u kala leeyihiin. 3 u soco si kalsooni leh, u dhaqan si degan, u hadal si tartiib ah laakiin fasiix ah oo la fahmi karo. 4 ku salaanta islaamka qof kasta oo ka soo horbaxa, indhihiinuna ay isku dhacaan ama aad kulantaan. 5 habee oo iska hagaaji hoygaaga. kala yaacitaanku waxa ay keentaa jahwareer iyo qaabdarro. 6 cunto dheelitiran. muhiimaddu maaha wax badan ee waa wax ku siin kara nafaqo, energy iyo caafimaad. 7 cab biyo badan maalin kasta. 8 samee jimicsi joogto ah ugu yaraan 30 daqiiqo maalin kasta. 9 akhri buug, maqaal ama daawo wax ku dhiirigelinaya, waxna kugu saacidinaya. 10 ka fogow wax kasta oo negative ah ama dib kuu dhigaya. 11 baro inaad maya tiraahid wixii aan dan kuugu jirin. horay ayaa loo yiri haa badan iyo haye fududba halaag bay ku horseedaan. 12 ha niyad jabin, hana ka yeelin inuu qofku liido ama uu hoos kuu dhigo. qof kasta waa gaar, Allah ayuuna leeyahay xilli kasta ayayna noloshiisu isbedeli kartaa. 13 hel hurdo kugu filan habeen kasta. 14 samee ficil naxariis leh, caawi qofku u baahan, bixi sadaqo, xaq dhowr dariska, xushmee dadka. 15 carabkaaga bar oo ku celceli dikriga Allah, dambi dhaaf weydiiso, ku shukri oo raac wixii uu ku faray, kana joog wixii laga reebay. laga yaabee inaad rabto wax badan oo noloshaada inaad isbeddel ku samayso, laakiin dhoobid ama dib u habeen been ah oo wax fiican loo ekaysiiyo maaha wax shaqaynaya. mana jiro guul si dhaqsi leh hal mar lagu gaaro. wax kasta waxay u baahan yihiin dadaal dheer, shaqo adag, dulqaad, horay u socosho iyo inaad si joogto ah u samayso ficilo yaryar iyo dhaqamo wanaagsan. haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray like dheh, sidoo kalena share dheh ama sii faafi si dad badan ay uga faa'iidaystaan muuqaalkan. mahadsanid.